agaasimaha hay'adda nabad sugidda ayaa dhabar jabiyay xasan sheekh maxamuud iyo qorshihii doorasho ee dowlad goboleedka galmudug isaga oo isbahaysi la sameeyay madaxweyne qoorqoor isbahaysi siyaasadeed oo gilgilay dalka sidoo kalena bedelay jihada doorashada ee dowlad goboleedka galmudug ayay wada gaareen mahad maxamed salaad agaasimaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee nisa iyo sidoo kale madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariyo qoorqoor dalabka isbahaysigan waxa uu ka yimid taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka mahad maxamed salaad kadib markii uu ku qanci waayay qaabka doorashada galmudug iyo nooca ay u wajahayaan xisbiga JSB iyo madaxweynaha sharci darrada ku jooga villa Soomaaliya xasan sheekh maxamuud maalmo ka hor taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka mahad maxamed salaad oo kaashanaya xafiiska ra'iisul wasaare xamse cabdi barre ayaa joojiyay xaflad lagu shaacin lahaa musharaxa xisbiga JSB ee dowlad goboleedka galmudug iyadoo xarunta xisbiga la rabay in lagu soo bandhigo boorar ay ku sawiran yihiin boorar uu ku sawiran yahay liibaan shul kulankaasi iyo joojintaasi kadib waxa uu ra'iisul wasaare xamse cabdi barre si toos ah isku soo horfadhiisiyay taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka mahad maxamed salaad iyo madaxweynaha sharci darrada ku jooga villa Soomaaliya xasan sheekh maxamuud sidaan hore halkan ugu baahinay kulankaasi waxa uu ku soo dhamaaday is-afgarad la'aan waana lagu kala tagay is-afgarad la'aantaasi kadib taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka mahad maxamed salaad waxa uu culays siyaasadeed saaray villa Soomaaliya isagoo xiriir toos ah la sameeyay madaxweyne qoorqoor wada hadallo muddo 2 maalmood ah socday kadib xalay sad dhexe ayaa la isku afgartay in la sameeyo isbahaysi u dhaxeeya qoorqoor iyo mahad salaad iyadoo qalinka lagu duugay is-afgaradkan iyo isbahaysigan heshiiska ah waxa uu dhigayaa in madaxweyne axmed cabdi kaariyo qoorqoor mar labaad loo dhiso inuu noqdo madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug sidoo kalena mahad maxamed salaad taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee nisa oo door muuqda ka yeesho dhisidda dowlad goboleedka galmudug mahad maxamed salaad sidoo kale waxa uu qaatay doorka ah in ciidamada dowladda federaalka ee ku sugan galmudug aysan ku milmin doorashada dowlad goboleedka galmudug sidoo kale waxa la isku afgartay in doorashadan ay maamusho wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta ee dowlad goboleedka galmudug mahad salaad ayaana dhisidda xukuumadda waxa uu ku yeelan doonaa door muuqda gaar ahaan xubnaha ka imaanaya dhuusamareeb iyo gurceel isbahaysigan waxaa sidoo kale qayb ka ahaa xubnaha waaye arag oo shalay xubnihii ugu horreeyay ay gaareen magaalada dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug sidoo kalena waxa ay soo dhaweeyeen isbahaysiga ay gaareen mahad salaad iyo qoorqoor isbahaysigan markii uu soo baxay kadib xasan sheekh maxamuud madaxweynaha sharci darrada ku jooga villa Soomaaliya oo kaashanaya xafiiska ra'iisul wasaare xamse cabdi barre ayaa dalbaday in uu kulan la yeesho taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka mahad maxamed salaad balse mahad salaad waa uu ku gacan seeray kulankaasi isagoo iska diiday sidoo kalena sheegay in xasan sheekh maxamuud uu sharci darro ku jooga villa Soomaaliya isaguna uu mas'uul ka yahay amniga dalka haddaba isbahaysiga siyaasadeed ee ay gaareen madaxweyne qoorqoor iyo mahad salaad sidoo kalena bedelay jihada doorashada ee dowlad goboleedka galmudug kadib maxaa u dan ah xasan sheekh maxamuud iyo liibaan shul